الرحمن الرحيم daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka gaarka M24 barnaamijka gaarka amaanta waxa aynu ku wareysan doonaa Cabdilatiif Xirsi oo ah tababare nololeed ahna aasaasaha macadka horumarinta aadanaha Mind Success waxaan Cabdilatiif ka wareysan doonaa shaqooyinka uu ka qabtay arrimaha dhiirigelinta iyo horumarinta dhalinyarada Cabdilatiif ku soo dhawow M24 bismillaah Cabdullaahi aad baad u mahadsantahay marka hore runtii aad baan idinkaga mahadcelinayaa adiga iyo teamka M24 inaad barnaamijkan gaarka igu marti qaadaan deetana xaruntii telefishinka aan imaado kadibna wareysigan aad iga qaadaan aad baan runtii horta idinkaga mahadcelinayaa marka barnaamijkana waan ku dhowahay mar labaadna waad mahadsantahay Cabdilatiif intaan wareysiga u guda galin bulshada isbar waa kuma Cabdilatiif Xirsi of course horta magacaygu waa Cabdilatiif Xirsi Cabdilatiif waxa uu ku dhashay gobolka Mudug qayb ka mid ah ku dhashay laakiin wuxuu wax ku bartay kuna barbaaray muddana ku noolaa magaalada Muqdisho Cabdilatiif waxa uu ka shaqeeyaa ama ka hawlgalaa barnaamijyada la xiriira life coaching-ka iyo human development-ga sidoo kale Cabdilatiif waa aasaasaha iyo agaasimaha guud ee macadka Mind Success Institute oo ah macad ka shaqeeya life coaching-ka marka si kooban Cabdilatiif waa inankaas Cabdilatiif sida la socono dhalinyarada jaamacada markay ka soo baxeen qof walba shaqooyin ayuu qabsaday adiga inaad tababare nololeed noqoto maxaa kugu dhiirigeliyay runtii horta su'aal fiican maxaa kugu dhiirigeliyay inaad tababare nololeed noqoto ama tababare inaad noqoto maxaa kugu dhiirigeliyay iyadoo ay jireen shaqooyin kale ama fursado kale oo runtii bannaan oo aad ka faa'iideysan kartay horta inta badan Cabdullaahi arrimahan life coaching-ka ama qofka inuu noqdo life coach inuu noqdo Soomaaliya horta marka la fiiriyo waxay ka mid tahay xirfadaha dhif iyo naadirka ee dadku inta badan aan ku shaqayn ayay ka mid tahay dhalinyarada barnaamijyadaas ka shaqeysana Soomaaliya waxay ku yihiin dhif iyo naadir bay ku yihiin oo kuma badna inta badan xoogaa dadku ma jecla mana aadaan sababaha keenaya inay inta badan dhalinyaradu aysan aadin waxa ka mid ah horta waa dhowtii baan gadaal ka sheegi doonaa kolley xirfadan horta life coaching-ku adduunyada marka la fiiriyo xoogaa urdun bay ku tahay 40 sano 30 sano horta da ahaan horta meelaha sii jirtaa si casri horta in loo practice gareeyo Soomaaliya markii la fiiriyana kuma sii jirto waxay ka mid tahay wadamada dhif iyo naadir ay tahay in lagu arko qof tababaro nololeed ah oo waliba certified horta dhif iyo naadir bay tahay in lagu arko marka haddaan su-aasha usoo laabto maxaa kugu kalifay inaan tababaro nololeed noqoto horta laba arrin ba horta way keenaysay kow yacni xogaa waxaan isku arkayay marka hore inaan leeyahay awood aan dadka wax ugu soo gudbin karo awood aan dadka wax ugu sheegi karo horta taas waxay ahayd sabab igu dhalisay ama igu riixday ama qasabtay inaan tababaro nololeed noqdo tan labaadna waxay ahayd waxaan qaatay aqoon iyo culuum iyo xirfado la xiriira filligaas aakhirkiina markaa waxaan arkay halkaas inaan ku habboonahay wax ka soo saari karo waxna ku anfici kara nafteydana aan ku horumarin kara marka sababta ugu weyn ee keentay inaan life coach noqdo oo xirfadaha dhif iyo naadirka ee Soomaalida inta badan aysan ku badnayn mid kamida aan ku biiro waliba aan ka shaqeeyo muddana aan ku jiro waxa ugu weyn inaan isku arkayay inay igu dhex jirto hibo ah inaan dad wax u soo gudbin karo la hadli karo waxna aan sheegi karo marka that was the biggest reason oo keentay inaan life coach noqdo tababare nololeed tahay dadka horta waxay isweydiinayaan waa maxay horta tababare nololeed muxuu macnaha maxay qabtaan dadka ka shaqeeya arrimahaas and of course waxaad maanta iska cad maanta haddii qof dhakhtar la weydiiyo dhakhaatiirtu maxay qabtaan waa jawaab cad oo banaankeeda taalo faahfaahin aan u baahnayn haddii sidoo kale la yiraahdo dadka macallimiinta ah ee dadka wax barana maxay qabtaan sidoo kale waa jawaab cad oo banaankeeda taalo laakiin dadka fieldigan life coaching ka shaqeeya ee loo yaqaano life coachesku maxay qabtaan horta waa runtii su'aal horta muhiim ah intaan marka horta su'aashaas ka jawaabin waxaan rabaa horta wax yar inaan isdul taago oo aan ka sheekeeyo horta life coaching waxa uu yahay si kooban horta inaan u sawiro horta fieldigan life coaching wuxuu ka mid yahay professionada adduunyada lagu shaqeysto ka mid yahay sida tusaale markii la yiraahdo qofkan waa ganacsade qofkan waa macallin qofkan waa siyaasi qofkan waa dhakhtar taytalada noocaas la qaato ama professionada noocaas lagu shaqeysto horta life coaching horta qayb ka yahay wuxuu uga bedelan yahay
waa curdun oo inta badan dadku uma badna oo adduunyadana xoogaa 40 years 30 years baa si officiala ama si modern loo practice gareynaya oo loo isticmaalaya marka qofka markuu yahay life coach markuu yahay waa qof horta sida hogaamiye oo kale u dhaqmaayo waa hawlaha marka qofka life coachka uu qabto waxa kamid ah horta number 1 waa qof dadka u hoga tusaaleeya siday ku gaari lahaayeen ahdaaftooda dadku ahdaaf way leeyihiin qofka life coach markuu yahana macnaheedu maahan dadka inuu ahdaaf u sameynayo sababtoo qof kastaahi waxa uu noqonayo iyo waxa uu qabanayo iyo waxa ku horgudboon ee uu rabo inuu sameeyo bari ka maalin waa kaaga cilmi badan yahay waa ogyahay laakiin qof kasta waxaa haysta caqabadaha horyaala oo kaga horgudboon waxa uu rabo inuu sameeyo marka qofka markuu yahay life coach waa facilitator qofkiiba marka wuxuu u fududeynayaa caqabadaha nolosha uga horgudban siduu uga gudbi lahaa deetana uu ahdaaftiisa ku beegsan lahaa buu qofka u fududeynaya sidoo kale dadka life coacheska waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin source of inspiration yacni qof dadkii dhaqaajiya qof wax bedela qof wax soo kordhiya qof dadka perceptionkooda iyo siday u fakarayeen iyo siday wax u arkayeen wax ka bedela sidoo kale dadka life coacheska waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin dad inta badan bulshada rajo ka dhex abuura waxaa laga yaabaa dadku inta badan inay daashadeen caqabadaha nolosha iyo mashaakilaadka jira iyo rajo xumo iyo waxa laga yaabaa halka inay ka taagan tahay baa laga yaabaa marka qofka markuu life coach yahay waxaa la rabaa dadkaas mashaakilaadka dhex jiifa mashaakilaadka dhex maquuranayo mashaakilaadka ku dhex jira waxaa la rabaa iftiin inuu meel kale uga shidi karaa la rabaa deetana markaa uu ku hogaamin karaa iftiinka uu ku hogaamin karo marka haddaan marka su-aasha soo aruuriyo qofka life coachka shaqooyinka ugu waaweyn ee uu qabto waxaa ka mid ah qofku horta waa sida tababare oo kale waxbuu tababarayaa waxbuu bedelayaa xog buu bixinayaa dadkiina wuxuu ku caawinayaa inay si fudud ahdaaftooda nololeed ay ku gaaraan sababtoo ah cabdulaahiyow qof kasta ahi wuxuu ku nool yahay buundada u dhaxaysa halkuu joogo iyo halka uu rabo inuu tago marka qofka life coachka waxaa loogu talagala dadka inuu buundadaas dhaafiyo very simple buundada u dhaxaysa qofku halkuu rabo inuu gaaro iyo halkuu joogo buundada u dhaxaysa qofku inuu dadka dhaafiyo ama ku caawiyo waa shaqada ugu weyn ee dadka life coacheska ay qabtaan cabdiradiif sida aan la soconaba si aad tababaro nololeed u noqoto waxaa sameysay machad lagu magacaabo Man Success Institute oo ka shaqeeya arrimahaas maxaa isleedahay machadkaas uu kusoo kordhin karaa arrimaha aa wada iyo kambeynka wado very easy horta for the past 2 years waxaan ka shaqeynayay arrimaha life coachingka iyo tababaradan horta ka shaqeynayay isla labadaas sano ee aan ka shaqeynayay arrimahaasna waxaa suuro gashay aniga iyo saaxiibo kale inaan aas-aasno dhidibada aan u taagno macad ka shaqeey life coachingka ama human developmentiga marka muddo adiga ku dhow 2 sano ayaan iminka hadda shaqeynaynaa oo sanadkii saddexaad baaba iminka hadda noo bilaabanaya marka macadkan Mind Success ee aan aasaasnay runtii horta wuxuu soo kordhiyey in wadanka laga helo tababarada iyo xirfadaha iyo initiative-ka la xiriira human developmentiga ama life coaching sababtoo ah adaateena waa kuu sheegay oo wadankeenu waxyaabaha aanu aadka looga helayn waxaa ka mid ah xarumaha ka shaqeeya life coachingka ama santarada ama platformiska bixiya culumta la xiriirta horumarinta tayeynta ama dhiirigelinta bini'aadamka marka si kooban horta macadkan wuxuu soo kordhiyey baahi taagneyd oo arrimaha life coachingka ayuu horta cover gareeyay oo daboolay halkaasna waxaa ka dhalatay inay dhalinyaradii helaan center ay ku qaataan tababaro center ay ku qaataan koorsooyin la xiriira capacity building ah center ay ka helaan culum la xiriirta human developmentigii center ay qofnimadooda ku qaabeeyaan marka taabuu horta soo kordhiyey sidoo kale wuxuu soo kordhiyey macadku waxaan daboolnay gaab weyn oo bannaanaa oo ahaa inay soomaaliya inta badan ku yaryihiin aqoonta la xiriirta life coachingka ama human developmentiga la xiriirta taana sidoo kale macadku uu soo kordhiyey marka waxaan dhihi karnaa ka macad ahaan waxaan ciyaaraynaa door firfircoon baan ciyaaraynaa marka la fiiriyo sidaan dhalinyaradii u train garaynayno marka la fiiriyo baahida taagneed ee intii karaankeena ahayd aan wax ka qabanay marka hawl weyn buu runtii macad ku hayaa macadka marka laga soo tago waxyaabaha kugu dhalay inaa nooga sheekaysay dadka maxaa lagu baraa marka laga soo tago in tababaro nololeed iyo fagaara ka hadalka waxaas lagu baro waxyaabo kaloo lagu bara ma jiraa
of course horta macadku waa laba qaybood ama laba dhinac oo waaweyn baan inta badan diiradda saarnaa. qayb waa capacity building oo waxaan ku bixinaa tababarada iyo koorsooyinka iyo seminariskan inta badan ku bixinaa. qaybta kalena waxaan ugu talagalnaa la talintaan ugu talagalnaa, sababtoo ah macadka waxaa jooga dad certified trainers, certified coaches, sidoo kale waxaa jooga dad ku xeel dheer psychology-ga qaybihiisa kala duwan. marka qaybta ku saabsan capacity building-ka dhalinyaradu inta badan waxay ka helaan tababarada iyo koorsooyinka ay isleeyihiin alaylehe waxay qaabeyn karaan qofnimadii inay qaabeyn karaan, halka berri aad ku haminaysaana waa waxay idiin noqon karaan sahay bay idiin noqon karaan. inta badan horta qaybtaas dhalinyaradu taasay ka helaan. marka loo daagaandego qaybta ku saabsan la talintana waad ka warqabtaayo cabdulaahiyow, dhalinyaradeennu maantay waxay wajahayaan ama ay dhex maquuranayaan number of challenges, hadday shaqo la-aan hadday ahaan lahayd, wax ku saabsan noloshii hadday ahaan lahayd, hadday ahaan lahayd qofka in lagala taliyo inuu soo saaro awoodda gudihiisa ku jirto kale inuu soo saaro kale. marka waxaa jiro jahwareer fara badan baa jiro. marka anagu qaybtan waxaan ugu talagalnay inaan dhalinyaradii ku siino talooyin ay wax ku noqon karaan, sababtoo ah marka lasoo duuduubo arrimaha life coaching-ka waa runtii aqoon ayadu diiradda saarta ama focuska iskugu geysa in la soo saaro qofka awoodda gudihiisa ku jirtay aanu ogeyn in la soo saaro, deetana qofkii la qaabeeyey qofnimadiisa in la qaabeeyo. marka labadaas qayboodee waaweyn ayaan ka macad ahaan anagu diiradda saarnaa. cabdilatiif, sida aan la soconno waxyaabahan dhiirigelinta ku saabsan Soomaaliya uu ku cusub yahay. dabcan wax walba cusubna markii wadanka soo gelaya ama markii bulshada laga dhaadhicinayo caqabadu qofka la kulmaa. marka adiga caqabada aad la kulanta ma jiraan? of course horta ma yara caqabadaha horta waxaan lagala kulmi karo ama runtii aan kala kulmay horta ma yara. waa tan koowaadee inta badan hadda marka geyigeena la fiiriyo dadku wax walbo ay sameynayaan meel bay uga daysadaan. tusaale qofka raba maanta inuu furo jaamacad oo kale wuxuu uga daysanayaa jaamacadaha hore wadanka looga furay. marka qofka isaga marka wuxuu haystaa reference buu haystaa. laakiin anigu markan macadkan furayay deetana aan noqonayay qof life coach markaan noqonayay horta meelo badan oo reference horta aan ka haysto waxaan ka tixraaci karaa horta may jirin. horta dhammaan koorsooyinka macadka ka baxa, tababarada macadka ka baxa, diblomooyinka macadka ka baxa, waxaasoo dhan systemkooda iyo qaabkooda dhan horta annagaa dejinay ayagoo jirin horta meel aan ka dhiganayno reference ama tixraac aan ka dhiganayno. si kale marka loo fiiriyana maadaama horta waxaan inta badan Soomaalideena ay ku yar yihiin ama dhif iyo naadir ay ku yihiin dadka waxaan ka shaqeeya, laazim qofka markuu xoogaa madaxa soo taago oo soo kaco waxa qabanaya yani attentionka dadku horta soo jiidanaya oo dadkii baa ka sheekeynaya, wuxuu qabanaya la fiirinaya. marka laazim caqabado horta way jirayaan. waxaa kamid marka caqabadaha iga qabsaday inta badan anagu Soomaali ahaan marka la fiiriyo qofka markuu dadkii wax u sheegayo, markuu tababar bixinayo, badanaa waxaa jirta dhaqan ama caado ah in horta qofka muuqaalkiisa la fiiriyo. oo qofkii xoogaa hadduu qof muuqaalkiisu weyn yahay oo qof weyn xoogaa hadduu yahay oo kale waxa laga yaabaa un inta badan dadku halkaa inay tig u saaraan baa laga yaabaa. laakiin qofkii hadduu qof da yar yahay, hadduu jab yar yahay, hadduu almost qofka muuqaalkiisa hadduu yar yahay oo kale waxa laga yaabaa halkaas dhibca inaa ku weysaa. marka inaa qaar dadku waxaa laga yaabaa inay kugu yeesaan muuqaalkaaga oo kale inay kugu yeesaan baa laga yaabaa ay ku yiraahdaan aad baad u da-yar tahay ama waad soo koraysaa oo kale inay ku yiraahdaan baa suuragala. waxaa laga yaabaa dadka qaarkood waxaad qabanaysa muhiimaday leeyihiin oo dhanba inaan u fiirin oo keliya imagination ayagu ay samaysteen ay kugu dhaliilayaan baa suuragala. marka caqabadahaas oo dhan horta runtii way iska jiraan. qofkuna sideeda markuu hadaf leeyahay ama tusaale qofka markay meel u caddahay laazim dhinacyada waxba uga imaanaya. hadallada dadka hadday ahaan lahayd waxa qofka uu qabanayo wax laga sheegay hadday ahaan laazim there must be some challenges. hadda adduunka caqabadaha ugu badan ee ka jira waxa waaye dadka boqolkiiba 70 waxay awoodi laayeen inay fakaara ka hadal ay sameeyaan. oo dad badan waxaa arkay PhD ama aqoonta heer sare ka gaaray qoraallo oo soo jiidasho leh sameeyay
oo dadka social media iyo baraha bulshada si fiican ugu soo bandhigaya markii bulshadii la hor keeno oo la dhahayo ninka waa ninka aqoon-yahanka ahaa kaalaha waxa noo sheegana wixii dadka aan u gudbin karin marka maxaa ninkaas ama qofkaas maxaa haysto caqabad ah isleedahay exactly horta qofka inuu si qurux badan fariin usoo gudbin karo oo khalqi kala duwan inta soo hor istaago afkaartiisa si qurux badan horta inuu usoo gudbin karo isagoo qalbiyadooda horta ku guuleysanayo horta wax horta si fudud horta ku imaan kara maaha arrinkaa ka dhawaajisana waa mushkilad taagan oo inta badan dadku inaysan ku wacnayn gola ka hadalka ama inay inta badan masraxi inta soo istaagaan ay si qurux badan horta u hadlaan oo wax usoo gudbiyaan horta waa problem jira oo haddana world wide ah oo adduunyada dhanba sida daraasaduhu ay soo warinayaan laga sheegayo marka waxaa laga yaabaa tusaale ahaan qofkii inuu macluumaad haysto ama macluumaad iyo xog iyo xeelada iyo xikmado maskaxdiisa qofkii inay ka dhaansan yihiin baa laga yaabaa haddana aanu awoodin waxa uu hayo inuu dad kale usoo bandhigo inuu dad kale u sheego inuu waxa maskaxda adduunyada gudihiisa ku jirta waxa laga yaabaa inuu banaanka keeni karin baa laga yaabaa maxaa sababa hadday timaado horta waxyaabaa ugu badan horta sababi kara waxaa kamid ah qofka waxaanba horta inaanu aqoon u lahaynba in sida dadka loola hadlay wax loo soo gudbiyaba horta qofka inaanu aqoonba u lahayn oo waxaan ay ku cusubyiin waxaa sidoo kale kamid ah almost qofkii oo ay ku xiran yihiin wax loo yaqaan self limitation isagii inuu ishaysto oo isleeyahay alla leeyahay haddaad waxaa samaysid ama waxaa lagaa qoraa haddaad waxaa samaysid alla leeyahay ama saas ku dhacdaa kadibna waxaaga lagu sheekaysta ama hadalkaaga lagu sheekaysta marka waxaas waxaa la yidhahdaa self limitation aa la yidhahdaa qofkii asagaa wuxuu isku abuuraya dayrkii celin lahaa asagaa isku abuura marka waxaa kale marka laga soo tago waxa ugu waaweyn ee dadka ka hor istaaga arrinkaas waa self limitation waa hadduu markuu qofku taa marka guulaystana of course wuxuu noqon karaa qof good communicator good speaker dadkana madadaalin kara uu noqon karaa cabdiladiif wax walboo la sameynayo qof walba hadaf uu leeyahay adi wadanka waxaa kusoo kordhisay in tababaro nololeed aad noqoto oo dadka aad tababarto dad kala duwana ku imaanayo qof PhD wato dad kala duwana ku imaanayo marka mustaqbalka ahaan xirfadan halkee rabtaa inaad ka gaarto of course that is a good question really horta fieldigan horta anigu waxaan ku jiraa 3 sanaan ku jiraa oo sanadkii saddexaad baa hadda runtii ii bilaabanaya waxyaabaha runtii allayle aan isdhihi karo waa ku faani kartaa oo waad qabatay waxaa ka mid ah platformkaas mind success oo aan soo kordhiyey oo 2 sane uu shaqeynayay la qabtay shaqo aan ku qaban lahayn 5 sano ku qaban lahayn qabtay das marka laga soo tago sidoo kale waxaan muxaadarooyin ka jeediyey dhowr jaamacadood oo jaamacadaha magaalada ugu magaca iyo saameynta badana waxaa sidoo kale ii soo raaco dhowr gobol oo isla 2 sane aan tago seminaaro iyo tababaro aan ka soo bixiyo casuumaado aan helay marka intaas waxaan ku qabtay marka la fiiriyo horta waqti yar baan ku qabtay mustaqbalka xagee ka hiigsanaysaa markay timaadana oo very simple horta hadduu ilaahay nafta yartaa igu simo caafimaadna isiiyo mustaqbalka waxaan rabaa inaan kusoo baxo international speaker qof just yani masraxyada adduunyada wax ka sheega Soomaaliya markay timaadana waxaan rabaa hadduu ilaahay yiraahdo inaan ka mid noqdo arrimaha life coachingka iyo tababarada iyo culumta la xiriirta human developmentiga dadka loo daba fariisto oo wax laga weydiiyo oo la yiraahdo alla ilaah markii life coaching la maqlaba hebel uu qofka maskaxdiisa ku soo dhaco Soomaaliya horta qofkaas aan ka doonayaa adduunyadana waxaan rabaa inaan ku soo baxo world class speaker insha Allah cabdiladiif gabagabadii barnaamijka kusii dhownahay macadka mind success kursooyinka uu bixiyo waxaa ka mid ah fagaara ka hadal oo badanaa ardayda ugu badan oo ka qalin jabis maadooyinkaasi inay u badan yihiin aan u maranaya fagaara ka hadalka dad markii hore idiin imaanaya oo ka cabsanaya inay fagaaraha ka hadlaan oo aqoon laakiin ku jirto jaamacada soo dhameeyey oo markay meesha ka baxeen wixii ku jira soo gudbiyey ma aragteen si practical ahaan of course horta si kooban tababarada macadka aan ku bixino ama koorsooyinka ka bax waxaa kamid ah koorsada iminkaad carabka ku dhifatay public speaking
this course waxaan ku train garaynaa those guys oo doonaya inay communicationkooda kor u qaadaan ama xirfadooda dad la hadalka inay kor u qaadaan. dadka ugu badan ee markan u yimaado waa ardayda jaamacadaha dhigata, dadka shaqaalaha, kuwa shaqadoonka ah, iyo dad darajooyin sarsare soo qaatay oo master oo kala soo sameeyey, laakiin caqabada haysatahay ay tahay without communication skills, qofkii halkaas inuu xoogaa ku liito, laakiin aqoon ahaan kale buuxa dhaansan maasha allah. mushkiladda haysata laakiin waxay tahay ma samayn kara good communication, ma samayn kara. marka way jiraan horta dad noocaas horta noo yimaada. sidoo kale gobolada laftirkooda dad baa macadka uga soo safra si ay koorsooyinka ama tababarada macad ka baxa ay u qaataan. marka waan la kulanay, waan aragnay, maalin walbana runtii waan aragnaa dad markay macadka nagu soo biirayeen mashaakilaadka haysta aan ka qornay tababarkii ama kooraskii ay apply gareeyeen, markuu u dhamaadana performance qurux badan la tegay meeshay ka yimaadeen. marka dadka noocaasa waxaan u aragnaa daily baan u aragnaa. waxaan maalin dhexdaas hadda jiray yar hindiya ka yimid oo masar soo qaatay. marka xaggu masar ku soo qaatay halkaanu yimid dhowr shaqo u apply gareeyey. shaqo kasta uu apply gareeyo waxaa ku jirtay qofku inuu leeyahay good communication skills, oo inuu leeyahay ku jirta. asagana cilada haysata waxay ahayd communication skillskiisa aad u hooseeyay. macadku noogu yimid muddo 3 bilood baa waxaan siinaynay tababaro iyo koorsooyin kala duwan baan siinaynay. final hadda wuxuu u shaqeeyaa suu ii sheegay hay'ad buu u shaqeeyaa oo waliba yacni jaga fiican buu haya. marka dadka noocaas waxaan ula kulanaa si daily aan ula kulanaa. gabagabadii barnaamijka ayaan ku jirnaa. ugu dambeyn maxaa kula talin lahayd dhalinyarada Soomaaliyeed? waa runtii horta su-aal fiican. dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa, runtii waxaan dareeminaa maanta horta inay caqabado horta iska badan yihiin. shaqo la'aantii hadday ahaan lahayd, fursadihii oo iska yar hadday ahaan lahayd, horta caqabado horta maanta runtii way iska badan yihiin. balse waxaan kula talinayaa horta meelaha qaarkood qofka hadduu Cabdullaahi oo fursadii hadduu waayo, qofka asagaa laga raba horta fursadda inuu abuurto, cidna aanu ka sugin baa horta la rabaa. marka number 1 horta dhalinyarada waxaan kula talinayaa cid allaala iyo ciddii weysa yacni jihadii nolosha qofku u wadi lahaa hadduu waayo, please and please qofkaa ha isku day inuu isagu wax abuurtay, cidna aanu wax ka sugin. sidoo kale dhalinyarada waxaan kula dardaarmayaa oo aan kula talinayaa inaanay isku qiimayn positionka markaa nolosha ay ka taagan yihiin. waxaa laga yaabaa wiilka Soomaaliga ah ee ku nool tuulo ka tirsan Boosaaso ku nool, aad meeshay u yartahay u kooban tahay, waxa laga yaabaa bii'adaas inta isku fiiriya inuu isiri noloshaba nasiib kuma liid, ama adoo halkaa jooga ma noqon kartid qof saameyn leh oo bulshadiisii ka dhex yacni door ka ciyaara ma noqon kartid. marka weligaa waxaan dhalinyarada kula talinaa inaanu isku qiimayn bii'ada ay joogaan, inaanu isku qiimayn. sababtoo halkaas waxaa jirto oraah yaroo oranaysa qofku meesha uu ku nool yahay waxaa ka muhiimsan waxa asaga ku dhex nool baa ka muhiimsan. marka adoo tuulo yar oo cirifka magaalada, cirifka waddanka ku yaala ku nool baa waxaa laga yaabaa arrin weyn oo cajiib inay kugu dhex nooshahay baa laga yaabaa. marka it's not meeshaad ku nooshahay, laakiin waa waxa kugu dhex nool. marka waxaan ku dhiirigelin lahaa dhalinyaradu waxa ku dhex nool ee qalbiyadooda ku jira ee yacni qalbiyadooda ka guuxaya inay ahmiyadda siiyaan oo ay ka rumeeyaan baan kula talin lahaa. nin oday baa hadda ka hor waxaa la yidhi, sheekadaasaan kusoo gabagabaynaynaa, baa waxa u yimid wiil yar oo tala nololeed doonaya. marka ninka odagaa wuxuu ahaa nin very expertia oo weliba consultanti u ahaa. marka wuxuu yidhi adeer waxaan u baahanaha inaad ila taliso. markaasuu yidhi magacaa hebel baa la yidhahdaa buu yidhi. markaasuu wuxuu yidhi hebel oo adigaa 10 sano kadib xaggee joogaa buu yidhi. 10 sano kadib nolosha xaggee ka joogaa? su-aashaas wuxuu yidhi jawaab u raadi, taladii nololeeda ugu muhiimsaneedna waad haysataa waa. at the same time qofka dhalinyarada ah ee maanta muuqaalkayga daawanaya mustaqbalka leh uun su-aashaas un baa weydiinaya bes. from right now oo 10 years kadib hadduu ilaahay caafimaad ku siiyo naftaan yartaana lagu daayo, xaggee joogtaa? qof noocee baa tahay? maskaxdaadii garaadkaagu intee la egyahay? maxaad haysataa? bulshadaadana qof noocee baad ka dhex tahay? marka waa noo 10 sano kadib hadduu ilaahay yidhaahdo. thank you. Cabdilatiif, waan kaaga mahad celinaynaa waqtiga aad siisay iyo
inaad bulshada macluumaad oo ku saabsan aqoontaada la wadaagto. Su-aashii hadalka ugu dambeeya waxaa kala dhex baxay oday Soomaaliyeed markaa dhahday. Soomaalida marka waxay dhahaan fagaara ka hadalka midka la bartay iyo midka dhaxal ahaan u imaaday waxaa fiican ay dhahaan midka dhaxal ahaan u imaaday. Sababtoo ah qofkii waxaa arkaysaa baadiye meel laga keenay ama baadiye ka imaaday oo waxba akhrin karin waxna qori karin oo good speaker oo bulshada qancinayo adigii oo laga yaabaa inaad PhD haysatana ay kugu adkaatay inaad qanciso. Marka su-aasha ugu dambeysa kusoo gabagabeynayna waxay tahay in waxaan dhaxal ahaan loo dhaxlo iyo in la barto kee fiican is leedahay. horta runtii waa mas'alo doodeedu taagan tahay yacni qofka inuu noqdo codkar ama hadal sameeye qofka inuu noqdo ma wax ku xiran baa genetic factor wax ku xiran miyaa oo dhaxal ahaan qofku u dhaxlay miyaa mise waa wuxuu qofku baran karo oo kasban karo oo la imaan karo. horta sida caadiga anigu iminka aan ka warqabo maybe daraasado kale inay jiraan oo arrimo kale ka sheekeynayo. inta badan maanta waxaa la isku raacay oo la leeyahay waxaani waa wuxuu qofku baran karo kasban karo la imaan karo practice gareyn karo deetana uu apply gareyn karo. marka in yar baa waxaa la leeyahay maanta waa u dhalasho. marka inta qofku uu practice gareyn karo baran karo iyo inta qofku uu dhalan karo waxaa nisbo badana inta qofku uu practice gareyn kara ama uu baran karaa kamid waa mahadsan tahay. daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka M24. barnaamijka waxaa marti ugu ahaa Cabdilatiif Xirsi oo ah tababare nololeed. waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdulaahi Maxamed Samawade. barnaamijkan midka xiga inta aynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.